muddo dheer waa la soo halgamay dowladda Soomaaliyana runtii de hoggaankaas dadkaas dareenkooda ay ku shaqeynaysay hadda waxaa la isla gartay in arrintii taagnayd oo loolanka iyo xinifta iyo xoogga iyo xoolaha badan uu nooga baxay sanadkan hadda aan ku jirno laga soo bilaabo kowdiisii ilaa mar dhow xalay ama maanta lagu jiraba in arrintaas runtii ay leedahay garantoorna ay leedahay heshiis adduunku uu arkayna laga gaaray afgarad adduunku uu arkayna laga gaaray Soomaaliyana wixii ay tabaysay oo dhanna inay soo xaqiiqsatay oo soo ku xaqiijisay warqadaas declarationka soo baxay inay ku soo dhaxgashay wixii marka hadda ka dambeeya inaan u bedelno cooperation iyo xooggeena aan ku bixinno horumarka dalka iyo in la interestiga dalkeena uu kow noo ahaado oo aan maaragtay mar walbaba meesha negativeka kaliya aan taagnaane inaan positiveka mararka qaarkood positiveka iyo niyad wanaag haddii wixii aan rabnay noo xaqiiqoobeen taasna waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqno ugu dambeyntii waxaa dadku ay in badan ka mid ah oon arkay dad madax in badan oo madax badan aysan u badnayn oo masalan ra-iisul wasaaraheenii hore xasan cali kheyre oo dhahay badii baa la gaday 2017 waan ogeyn in nin Soomaaliya halgamaya oo qadiyad Soomaaliya u taagnaa in golaha wasiiradu oo madax ka ahaa inuu ka dhoofiyay airportka Muqdisho ururkii ONLF inta fariisiyay 2 wiig kadib ama wiig kadib uu ku tilmaamay inay argagixiso yihiin aniga dadka marka in maanta uu yiraahdo ayadoo warqada noocaas oo dadka Soomaaliyeed aan mugdi la gelin qadiyad Soomaaliyeed aan mugdi la gelin oo urur Soomaaliyeed oo xaq u dirir aan lagu tilmaamin argagixiso qof Soomaaliyeed aan la dhiibin bad Soomaaliyeed aan la dhiibin oo leeyahay shuruucda dalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ha looga dambeeyo hadduu ku tilmaamay bad in la dhiibay runtii ayaan darro weyn weeye dadka Soomaaliyeedna de taariikhda maba duugoominba hadda way cusub tahay wax cusub hadda dhow 5 sano ka hor wax dhacay ayay ahaydba dadkaas oo kale anigu inay gabadaan aysan dadka Soomaaliyeed wuxuu sheegin waliba wixii ay sameeyeen oo kale aysan ku tilmaamin ayagoo caddahay oo banaanka ay taalo inaysan dadka Soomaaliyeed marar habaabin oo qaawan oo waxay sameeyeen oo dhan ay intay iska indhatiraan ay noocaas oo kale u soo agstaagaan aniga aad baan runtii saaxiibkay waa ixtiraamaa waa sheekaysanaa laakiin arrinta maanta uu sameeyay runtii lagama filayn hogaamiyaasha kale oo Soomaalida oo dhanna runtii aad bay arrintaas dabcan de way akhriyeen way arkeen way ruugeen qaar ka mid ah wayna soo waceen waa meelaha qaarkood oo ay wax ka qabeen markaan qofka jooga laysa man ra'a kama sami'a sida qof maqlay lama mid ahan qofka darka jooga oo markaas wada hadalka ku jira qaarkood meelay naga weydiiyeen markii de aan clarification sida hadda u bixinayno kale u bixinana way ku qanceen wayna arkeen marka runtii aad iyo aad baan madaxda Soomaaliyeed guud ahaan mucaarad iyo muxaafidba aan ku amaanayaa inay maaragtay ay si sharaf leh ay u ixtiraameen u arkeen aysan siyaasad ka dhaxeegin arrintan hadda meeshan lagu gaaray oo dawladda Soomaaliyeed u soo xaqiijisay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baa mahadsantiin